xaflad ballaaran oo si heer sare loo soo agaasimay loona qabtay furitaanka sanad dugsiyeedka dugsiga sare Al-Nuur Secondary School laguna sagootiyay ardaydii ka baxday isla markaana lagu soo dhaweynayay ardayda cusub ee fasalka koobaad ee dugsiga sare ee dugsigaasi ayaa ka dhacday xarunta dugsigaasi ee xaafadda Hodan ee magaalada Burco waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer madaxda sare ee jaamacadda Islaamiga Al-Najaax waalidiin arday iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa ka hadlay xafladda maamulaha dugsiga sare Al-Nuur Sheekh Cabdi Qani aw Saalax Ali oo si cilmiyeysan uga hadlay qiimaha ay waxbarashadu u leedahay aadanaha kana waramay horumarka muuqda ee uu sameeyay dugsigaasi Al-Nuur sidoo kale waxa ka hadlay madasha waalidiin arday barayaal mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada madaxa dalada waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Geeska Afrika ee gobolka Togdheer Shaafici Nuur iyo gudoomiyaha jaamacadda Islaamiga Al-Najaax Sheekh Dr. Faysal Maxamed Ali oo goobta kaga dhawaaqay in jaamacadda Al-Najaax ay waxbarasho bilaash siinayso ardaydii kaalmaha hore ka galay dugsigaasi waa xafladii furitaanka dugsiga waxa kale oo furitaanka ku hoosay runtii soo dhaweynta ardayda dugsiga ku cusub sanadka ee fumanada iyo sagootinta ardaydii ka baxday sanadka dugsiga intaba dugsigan Al-Nuur oo muddo badan runtii soo jiray gobolkana waxbarashadiisa door weyn ku leh waxaan ku leenahay ku soo waxbarashada guud ahaan waa meesha qofku ka dhaqaaqayo ardayda dugsiga dhigata arday 700 arday cagaynaysa dugsiga runtii waxa uu haystaa goob waxbarasho oo ku habboon waxbarashada lagu talagalay dugsigu waxa uu haystaa fursada hablaha iyo inamada kala soocan bas iyo fasal iyo deegaanba dugsigu waxa haystaa runtii macallimiin Ilaahay barakeeye u dadaasha waxa ku soo ururmay soo kala ardayda inta akhlaaqda wanaagsan madaxdii ka hadashay diblomaasiyad ma ahayd marqaati bay fureen dugsigani inuu gobolka ka tilmaaman yahay runtii baa laga marqaati kacay waliba inaynu sii kordhino horumar hadda waynu haynaa wax badan baa loo baahan yahay in laab uu yeesho u baahan yahay waalidka iyo ardaydaba iyo dhammaanteenba baynu sanadka ka fikirno horumarin dugsigeenu ku sameeyno waxbarashadiisa alxamdulillah waxaan u mahadnaqayaa alle kadib maamulka iskuulka Al-Nuur Secondary oo runtii ah iskuulada macruufka ka ah gobolka Togdheer aad iyo aadna loogu intifaacay jaamacadda Najaax way soo dhaweynaysaa waxaana idin haysaa tacliim xaqiiqi ah oo sax ah oo shariicadii islaamka iyo furuucdeeda kala duwan ayay idinku soo dhaweynaysaa waa dugsi aad iyo aad u qiimo badan aad iyo aadna u sharaf leh dad aad iyo aad u sharaf badan in ay ka soo baxaan aanu hambalyeynaa oo baarigeena maamulka iyo macallimiinta dugsiga iyo ardayda dugsiga Al-Nuur Secondary School furitaanka sanad dugsiyeedka dugsigan Al-Nuur Secondary Burco nagana sharaf weyn oo tahdana gudoonkii waxbarashada inaan kala soo qayb galo dhammaan dugsiga sare Al-Nuur ee magaalada Burco ayaa sanado badan kaalmaha hore ka galayay imtixaanka shahaadiga dalada waxbarashada ee dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Geeska Afrika oo uu kamid yahay dugsiyada hoostaga dugsigaasi Ali Daar Maxamed Boos TV caalamiga Universal Burco